dalka madaxweynaha u baahan yahay oo midka hadda ku fadhiyo dal sidiisaba waxa waaye istaraatiijiyihiisa waa 6 qodob 6 qodob saddexa ugu waaweyn waa dal madax bannaan iyo dadku madax bannaan iyo amni loo dhan yahay saddexdaas ayaa ugu muhiimsan ciidan amni madaxweynaha waa dhisay madax bannaanidii dalkana bannaanka uu soo dhigay 205 dawladood oo maanta loo aqoonsan yahay dawladnimo ayaan ka midnahay dad madax bannaan waa Kenya wixii xabsiyada ku jira iyo wasaqo dhan waa Kenya dadkii cirfiyada badda iyo biriga intaba goosanaya Yurub yiri ciidamadan Afrikaanka oo inay Soomaali xornimo iyo madax bannaani gaarta aan rabin mandate baa la siiyay inuu degdeg dalka uga saaro ciidanka marka ninkan hadda fadhiyo waxa haysto qura waxa uu ku fadhiistay sharci dhabarka lugaha iyo madaxa ka xiran oo ay hore u sameeyeen gumaysigii ay wax la wadaageen Xasan Sheekh Maxamuud iyo wixii ka horreeyay oo muxuu ahaa kaas eraga federaal farmaajo ma keen sida uga lug bixi lahaa dalka uga saari lahayn hadduu qorsheeda ku jira kuwa ka daba qaylina oo bilaa idinkiisa daba ordaayana waa niman soo wada fashilmay waa niman soo wada fashilmay waa niman banaadir hana waayay waa ayaga niman in la kala ilaaliyo u baahan ayaga inay wax ilaaliyaan aynan ahalba u ahayn waa ognahay qaarkood waa ka weynahay qaarkood waa ka aqoon badanahay qaarkood waa ka dhaqan badanahay dadka waa aqaan kulligood waa wada aqaana niman aqoon aan u lahayn kuma jirto wax hadda waqwaqlayna oo dhan kulli wada dambilayaal dambi ka cararayaal waa nin qof lagu aamini karo kuma jiro naftoodana waa nin Soomaalinimada nacab oo qarbi ah oo qabiilkii Qur'aan ka dhigta waxaas wado Soomaali waa hal ee laba ma tawxiidka hal bay ku yihiin luqadana hal bay ku yihiin sawraca iyo sumadda hal bay ku yihiin sooriyada iyo sadaqada iyo soo dhaweynta islaamnimo iyo darisna xaq mid bay ku yihiin هذا ما كلها قفا وين مش عم قبضها ودك sanadaha soo socda wax loo dhiibo ma qaba wiil because 32 sano yaa haysta yaa cidda haysatay yaa way madir baa ku dhex jirtay madaarooda ku dhex jiray madigili mirifla ku dhex jiray cidda bal haysatay ii sheeg cidda haysatay ii sheeg dhulkii shalay hawiyo oo u dirirayay dhulku shalay hawiyo u dirirayay oo buuraha rabbaable ilaa iyo afmadow ahayd maanta maxaan ka haynaa banaadir oo caasimadii ah banaadir waa xundurnaageed weey xundurnaageedna ninka qaba arko yaa xundurnaageed waa banaadir sid barqash dad baa ka kiciyay talyaanigii dad baa ka kiciyay ingiriiskii dad baa ka kiciyay Soomaaliga rajiinadii dhacay dad baa ka kiciyay Soomaalidan garan qabriga Cabdirashiid Ali Jimcaale oo ku duugan yahay Cabdirashiid Sharmaarka oo ku duugan yahay 1919 markii la dilay Allah u naxariistee dhulka oo ku duugan yahay waa laga iibiyay dhulka oo ku duugan yahay waa laga iibiyay taasaan marqaati u naxnu soo taagnayn waxa marka oo banaadir bugdiga ku riday soo kuwa hawiyo aad sheegaysid Soomaa kuwaas uguma aamini karo waxba Soomaaliyuna dib bay u heshiisinaysaa dib bayna u dhaqmaysaa Soomaali waa un Soomaali waa asigaaba madaxweyne aba cidaanto maanta min qarsoon oo aan soo bixin ma ogi laakiin cidaanta maanta oo asiga dalkaas lagu aamini karo oo gadaashiisa jiro oo aan ogahay ama ii muuqdo runtii ma jirto waxaan idin leeyahay reer gal muranow آخرنا ملكم الهدين أدوكنا ملكم الهدين وايو أفر إيا لباتك الصعوة إذين حبض إيا حاسد إيا دل إيا مرن إيا قتشع إلهي انت كعب ستان شعبك أبا ريسن أو نبك كتشرة حبضك كداية وحكاها الله يا موضوع قلمدو كتاغن أو مارت إسقبقبسك أو فراها بضل ورت الصومالية وحالدين شيئا ماشا لما يري هذا قلمدو magacu waa khalad
waxaa la yidhahdaa magaceeda gal muran baa la yidhahdaa waa gurigii muranka horta taa Soomaali ha ogaato galmudug ma aha waa gurigii muranka waa gal muran sababtoo ah labada nin ee walaalaha wada dhashay mid hadduu wax helo midka kale kuma farxayo inuu ku dilo raba waxa weeye marka maamulada Soomaaliyeed ee gobolada ka dhisan ayadoo federaalku sidiisaba xaraan yahay oo Soomaali u fiicnayn meesha ugu dhibka badan ugu khayrka daran ugu qabyaalada badan ugu maaratay nacfiga daran waa gal muran waxaad ogtihiin saddexda magaalo oo Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo iyo Cadaado saddex jifo oo walaalaha degan waa Cayr iyo Saleebaan iyo Sacad waxa isku haysta oo isdilaya oo iswanjalaya oo mooshinka iska keenayana waa iyaga waxaan leeyahay dadka reer gal muranow xaqiiqadaan isu sheegno ninkii xil ka waayana wuxuu leeyahay waa duminaya ninkii xil ka helana wuxuu leeyahay intaydi ka helaya maxay iga galay dhaqankooduba waa saas hadda waxa duminaya oo mooshinka dabada ka wada oo kicinaya waa raggii xilka ka waayay markay musharaxnimadii doonteen xildhibaanada raggii ka waayay baa dadinaya waxaan idin leeyahay reer gal muranow aakhirana meel kuma lihidin adduunkana meel kuma lihidin waayo 24 saac waa idin xabad iyo xaasid iyo dil iyo muran iyo qatajac ilaahay inta ka cabsataan shacabka abaaraysan oo dhibka ku jira xabadda ka daaya qayb wadaadadii baa ka dagaalamaya qayb al-shabaab baa ka dagaalamaya qayb ayagii baa isku dagaalamaya qayb qabiiladii baa ka dagaalamaya war xageed u socotaan war miyiina la alaysa minkum rajulun rashidun war nin wax garta miyuuna idinka dhalan war wixiinu maxoog ku xalaaleeba war ilaahay inta ka cabsataan maamul fiican oo wanaagsan oo qable oo wanaag leh oo horumar iyo magac idin soo jiiday yaad yeelateene deysta midooba bari markuu xilku ka dhamaadana muddo yar baa u hartay 2 sano waa dhamaadeen laba u hartay markuu qaato labada dhamaato ninka rabtaan hadana u doorta inta yeela ismaqla dadku ismaqal buu wax ku keenaay anu dadka reer galmudug intaasaan leeyahay